kulan maanta ay yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana ahaa kulan degdeg ah isla markaana uu shirgudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kana qayb galeen saraakiisha ciidanka booliiska kuwa militariga nabad sugidda asluubta taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir iyo kuwa saldhigyada ayaa lagu gorfeeyay qodobo kala duwan oo ku saabsan amniga guud ee magaalada caasimadda ah Muqdisho iyo nawaaxigeeda. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu horeen warbixin ka dhageystay laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya. ugu dambeyntiina waxaa go'aan lagu wada gaaray in xukuumadda ay u guurto furmaha dagaalka isla markaana qayb ay ka noqdaan howlgalka dowladda Soomaaliya ee wado isla markaana lagula dagaalamayo kooxda khawaarijta si looga saaro guud ahaan dalka. Xamse Cabdi Barre ayaa ku guubaabiyay saraakiisha ciidanka booliiska gobolka Banaadir kuwa saldhigyada iyo sidoo kale golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya in ay xirtaan tuutaha isla markaana ay qaataan qoryaha una guuraan furmaha dagaalka si loo dhiirigeliyo shacabka Soomaaliyeed isla markaana shacabka ay ugu dhiiradaan howlgalkan oo qayb uga qaataan isla markaana ay u tagaan furmaha hore ee dagaalka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa laga soo xigtay dhinacyada ka qayb galay in uu yiray xilligan waxaa la joogaa xilligii ciribtirka. xilligan waa xilligii golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ay ka soo guuri lahaayeen xafiisadooda isla markaana ay ka soo bixi lahaayeen mukayfka iyo qabowga ay dhex fadhiyaan una guuri lahaayeen furmaha hore ee dagaalka si ay dhiirigelin ugu noqdaan shacabka iyo ciidamada xilligan ku jira dagaalka dalka la rabo in lagu xoreeyo. haddii aysan dhicin arrimaha aan ku guubaabiyay ciidamada kala duwan iyo saraakiisha qaybna ay ka yihiin golahayga xukuumadda gudaha dalka kama dhici karto doorasho amni ku sugan isla markaana shacabka Soomaaliyeed kuma dhiiran karaan in ay qayb ka noqdaan dagaalkan iyo howlgalka ay wado dowladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sida ay soo dusiyeen qaar ka mid ah dhinacyadii ka qayb galay kulanka aan caadiga ahayn ee maanta golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ay yeesheen isla markaana ka duwanaa kulmadii hore ee golaha xukuumadda. Xamse Cabdi Barre iyo xukuumaddiisa ayaa la qorsheenayaa in tuutaha ay wada xirtaan isla markaana ay gaaraan guud ahaanba furmaha kala duwan ee gobolka Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, gobolka Hiiraan, Galgaduud iyo qaybo kale oo ka mid ah dalka si guud ahaan dowladda Soomaaliya ay u tusto indhaha caalamka ee shacabka Soomaaliyeed inay ka go'an tahay ciribtirka kooxdan hadda sii dabar go'aysa.